السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا شرفت بدن كسو دواada قادري كوليج أونلاين iyo cashar kale oo xiisihiisa wato maanta hadduu ilaahay idmo waxaan miiska noo saaran cashar sawaaxili ah hadduu ilaahay idmo waxaan ka hadli doonaa dadka kala duwan shaqooyinka kala duwan ay qabtaan shaqada qofka uu wax u soo bartay loo soo tarbiyeeyay sida khaaska ahna uu uga shaqeeyo waxa sawaaxil lagu dhahaa marka taaluma qofka wuxuu cilmi u leeyahay ama aqoon u leeyahay oo sida saxda uu qaban karo ingiriiska waxa lagu dhahaa occupations aa lagu dhahaa qayb ka mid ah haddaan fiirino daktari waa dhakhtar polisi waa booliis mwalimu waa macallin mfanyibiashara waa ganacsade mwanafunzi waa arday mwimbaji waa heesaa daktari waa dhakhtar polisi booliis mwalimu macallin mfanyibiashara ganacsade mwanafunzi arday mwimbaji heesaa daktari dhakhtar polisi booliis mwalimu macallin mfanyibiashara ganacsade mwanafunzi arday mwimbaji waa heesaa daktari waa dhakhtar polisi waa policeman mwalimu macallin mfanyibiashara ganacsade mwanafunzi arday mwimbaji heesaa marka dadkan arkaysaan qof kasto shaqada uu qofka wax u soo bartay loo tarbiyeeyay haddana uu ku shaqeysto ayaa waxaa la dhahaa tacluum la dhahaa qaybta kale haddaan fiirno muhandisi waa engineer waa qof engineer ah msanii waa artist waa qof dadka maaweeliya ama madadaaliya ama majaajilista ah ayaa waxaa la dhahaa artist mwigizaji waa dadka filimaanta jira mwigizaji actor oo nin ahna wuu noqon karaa mwigizaji actress waa english laakiin sawaaxiliga waa isku mid mwigizaji haddaa dhahdo hadduu nin yahay iyo hadduu naag yahayba waa jilaa mwigizaji jilaa muuguzi nurse englishka lagu dhahaa ama kalkaaliso muuguzi kalkaaliso mkalimani translator waa qofka luuqadaha kale ku fasiro muhandisi waa engineer ama engineer msanii waa artist ama qofka dadka maaweeliya ee maaweelada ka shaqeeyo mwigizaji waa actor hadduu nin yahay iyo hadday naag tahayba mwigizaji aa la dhahaa muuguzi waa nurse ama kalkaaliso mkalimani translator ama qofka luuqadaha fasiro kusoo dhawaada qaadiri college online asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh